dhowr qof markaan weydiiyey aan ku yiri saasaan dareemaa asxaabteedii ka mid ahaa subscribe to my channel way dhacdaa jirkaaga and also daalan press this bell muddo icon. badan markaa jirku cabsi buu dareemayaa seexo waan seexdaa habeenkii markaan seexanayo markaa aad kursidaas kasii dhegaystaa albaqraas kadhisa waan seexdaa cid kale lama sheer garay markaa wadaadii xogtoona uma sheegin maalma ka mid ah waxaa dhacday inan aan saaxiib nahay oo joogta maxaa la yiraahdaa jarmalka joogtaan u sheegay kuri nimco saasa igu dhacda waana igu soo badanaysaa baan ku yiri dadna igu tiri hadhayalsan saaxiib sheekh u sheeg waa inaad sheekh u sheegto way ka soo waada haddana inan aad iyaduna maasha Allah diinta ku xeel dheer oo wadaada oo joogta Canada ayaan u sheegay iyadana warsan la yiraahdo qaraalaha siiyo waan sheegay xigta waa sheekh halkan la joogana waan u sheegayaa wax kale ma adfaxay ilaah baa ku jecel toobadna keen waxana ku jirtana iska daawadaadana kaashabay igu tiri ilaahay ma taqaanaa u soo noqon wax kale awalba ma sameynayno xunde waa sameynaysa isma salaadina waan tukanay laakiin kulli haasuu ma dambiya waana macsi hadalka yaraan ku badinin waxa dhacday haddana asxaabta badana guriga saaxiibadii baan joogaa markay inantu ii soo gasho waan ka baqaa waan sasaa sidii qof guriga cidlo oo kale jooga baan qaylinaya samadan ka qaylinaya isagu tirna shadaaka iska naar maxaad la sasaysaa habeen badhna ma waa xilli caadi ah fiid kadib waxa dhacday waan soo tagay gurigaygaan imi qaybisada dabka maxaa la yiraahdaa aan gashado habeenkii marka seexdo mas bay noqotaa qaybisadii mas bay igu noqotay chargerka anigu aan chargerkan isticmaalayana sidoo kale mas buu igu noqday dadna waa dad sida dadka ila hadlayaan way idilayaan inay idilaan bay isku dayaan sida dadka ila hadlayaan waan ka caawin cudbilaysa guriga dhan waa cidla ma hadli karayo marmarna inta la qabto cunaha la igu dhagaa meel madow la geliyaa saayta la qabtaa la ciijiyaa kadib waxaa dhacday sidii baan habli haddana ugu sheegay sidii bay igu yiraahdeen waa inaad sheekh u sheegtaa warkayaan ku badnaa sheekh baan u sheegay waxaan ku jimcihii baa sheekh la xidhay waxaan ku saasa igu dhacda dhibaatadaasaan dareemayaa mana garanayo de wax subscribe to my channel and also press this bell icon. waalkayna raalligu iga yahay ummadda ilaahayna way iga amaan heshaa oo inta ugu badan waxaa siraa ummadda saaxiibbaaba la tahay oo cidna dhibaato uma geysto cidna saacadan isma hayno marka muxuu camalkaagu yahay wuu igu yiri waxaan qabtay shaqadayda iyo camalkayga la sheegay kadibna waxaan ku fanaanad baanay hadalkii kooban sheeg subscribe to my channel and also press this bell icon. waxbaana lagu tusay wax aad wax ku wada qaadata ayaa lagu tusayay qofka ilaahay jecel baan xumaanta ka soo qabtaa inta ka badan waad arkaysaa haddaad ku sii jirto wax badan oo kala arkaysaa laana waa runtiisa jirku way gariiraa dhakhtar kasta wiiga waa marba xawadnaa xanuunaa jirku intuu gariiro wadnuu dhacaya marsan gariiraya marka sababana dhiig bay ugu kacsan dhiig ma ahan waxba waa layga waayaa haddii yadan wuxuu igu yiri halka aad taagan tahay waa inaad kaga dhaqaaqdaa waxaad hayso quraanka ayaa ku ah dawo quraanka ilaahay iyo jidka ilaahay ku toos maxaa la yiraahdaa ilaahay u toobad keen halkaan ku jooji waxa aad gacanta ku haysaa halka ku jooji marka runtii waxaan door biday maadaama ilaahay jecel yahay oo ku faraxsan alxamdulillah rabbil caalamiin xumaanta laga qabanayo waxa la tusayna aan ahayn wax yar oo aan gama waliba markaan kaliya hay ugu badan tahay asxaabtayda markaan la joogo saaxiibada gurigeeda joogo inta badan waan sasaa markay waan qayliyaa sasku igu badayay runtii laakiin ma arko waxay igu darantay markaan kaliya noqdo ayaa waxaan ii imanayaan dadkani ila hadlayana ma arko badana ma arkayo bishana way igu soo badatay imka bishan lagu jiro dhan way haysatay dhibaatadaasi marka alxamdulillah rabbil caalamiin nafta meesha jirta ilaah baa garanaya oo diinta la sheego lagu hadda dhimanaysan hadda dhinto oonan toobad keenin waa dhibaato marka waxaan rabaa inaan nala sheergareeyo subscribe to my channel ilaahay toobad press this bell icon sida ku toobad keeno maxaa la yiraahdaa farahana aan ka qaado shaqada aan hayo runtii kuma dhex jirin guurso walaalo walay qabaa soo dhawow marka maxaa la yiraahdaa waxaan doonayay halka inaan ku joojiyo runtii marka horena kuma dhex jirin oo waxaan ahaa dadka ka aan saa ugu sii dhex jirin fanka inta wanaagsanna waan ka raaci jiray dadka wanaagsanna waan ku xidhnaa oo deefanku hadba waa sidaada u dhaqanto marka waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo intii ila soo shaqayn jirtay ila soo shaqaysay intii aan ku jiray abwaaniintii garab qabatay fanaaniintii garab qabatay dadkii oo dhan inaan u mahad celiyo aniguna toobad ilaahay way bannaan tahay maanta oo maalintu tahay maantanan aan idinla hadlayo inaan gebi ahaanba iska joojiyey kana codsanayo walaalaha inaanay dhegaysanin oo dhibaatadan ay igu sii badanin halka ay igu daayaan ilaahay ha u dambi dhaafo iyagana inuu ilaahayna ii dambi dhaafo oo saa ku daayo aan layguna soo taagarayn layna dhegaysanin hadday awoodaan anigana
iisoo ducaysaan inuu ilaahay saa igaga masaxo cabsi oo ilaahay uu khayr ka dhigo soo telefoon baa soo galay marka insha Allah biidmillah abwaanintaydiina waan u mahadnaqayaa intii awoodaysan inay heesahayga YouTube ka saaraan ee aan garanayo gelisay waan ka dalban doonaa insha Allah waan la hadli doonaa intaan garanayo intii kale aan garanayna haday videogaygan arkaan ay ka saaraan idinkuna aad igu ducaysaan toobada inuu ilaahay maanta uu waafajiyay lay tusay ifka wax laygu tusay inuu ilaahay ila garab galo sidaan hadaayadiisa uu igu wado insha Allah biidmillah dhowr jeer waan isku dayay waanan iri waan ka baxay laakiin waxna ma dareemin waxna ma arkay hubbigiisa ka yahay waan iska qaadi jiray heesaa waan iskaga dhex jiray laakiin maanta waxaan wax ku qaata baan arkay oo lay tusay insha Allah inaguna maanta waxaynu maraynaa in lagu xaragoodo oo macrad dhan loo dhigo oo loo soo shaqo tago oo wax nasiib darro ah way aad iyo aad u cajiiba soobeedaan arkaynin inamadii yaryaraad oo muruqyo kuusan oo dhar isku soo gejiyo xubinkoodii taranka halkaa ka muujinaya sida sawirada ka muuqanaysa ayaa hablo aad u badan oo hablaheennii loo soo fadhiisiyey yaa madaxda waddanka dumarkooda qaad ka midaba mashruuc lagu siiyo abaabulayaba daayartii aqoon-yahanka ahayd weeye ee dadka sixi lahayd marka habluhuna laba layn oo aad u dhaadheer bay u fadhiyaan kabaradana way wada haystaan iyo moobaylo ay ku sawirayaan kolba inan baa dabada dhaqaajinaya iyo bowdada iyo inan baa berigii hore dhaqaajin jirtay laakiin inankiina waa lagu soo daray mataqaanaa sheekada inanku halka ka timi waa qowmuluudkay ka timi berigii hore gaaladu waxay samayn jireen tartankan quruxda iyo ahalahan dharka lagu xayey dumarka lagu xayeysiiyo dumarkaa samayn jiray marka waxaa xanaaqay faransiiskay ka bilaabeena kuwii qowmuluudka ahaa ayaa xanaaqay oo yidhi annaga laftigayga dee waana la waxeeyaaye maanu isbandhigna annaguna markaasee raggii qoomuluudka ahaana intay dhar soo qaateen iyaguna ismarmarooriyeen oo isa soo bandhigeen sheekada halkaa ka timi baa hargeysa ka socota halka sheekee oo inamadii la daawadsiinaya hablihiioo halkaa laga basbaasaynayaa dee inankaa yara muruqyada kuusana si ay isu maroojinaya markay inantii aragto goordhow xagga shishay ka bidhaansanaysa siday ku odhanayaan reer hebelinin bay naga garciyeen gaalna xagga dambe u fadhiyaa sida ka arkaysa sawirka mid gaaloo timacad ba xagga dambe fadhiya waa arrin yaab leh waktiga soo socdana waxaa la samaynayaa tii hablaha markaa kolka wax ka hadla la waayayo wax diida dee waa lagu wadayaa un inaad waalanayso maasha isha la yidhaahdana iyo waxaad arkaysaa iyo xubinka taranka ilaahay wuu isku xidhay halu fiirsa aayadda ragga markuu ka warramaya dumarka markuu ka warramayeyba qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum labada jeerba ishana ha ilaaliyeen farjigana ha ilaaliyeen macnaha waxa macruufoo la og yahay sharcigu sidaa uu inoo sheegay caqliguna sheegayaa sidoo kale daraasadaha laga sameeyey caafimaadkuna sheegayaan